Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa request lesson aynu ku eegayno codsi ka yimi asxaabta qaar oo ku saabsiisan su-aal soo noqnoqotay oo ah sida loo duubo shaashada computerka, sida fideogan aad daawanayso oo kale loo duubay. Marka darsigan hal xalqad weyn kaga bixi karnaa, weyn ku dhammayn karaynaa hal xalqad, laakiin sida ugu fiican waxa weeye in tutorial iska dhigno, xalqado taxana ah oo kow laba ah aynu ka dhigno si aynu u sharaxno dhammaan barnaamijka. dabcan barnaamijka isticmaalna waa barnaamij aada weyn, markaa sharaxan guda galaynaa. waana tutorial one, sidaa weynad u ogaataa. si aad tutorialska ula socotana waxaad tegaysaa bloggeena, marka qeybta tutorials ayaad u doonan doontaa mar kasta, halkaas ayaad kala socon doontaa. bismillah, xalqada ayaan bilaabeynaa. si aad u duubto shaashada computerka waxaad isticmaali kartaa software aada u fara badan. marka ka ugu caansan uguna dambeeya aynu isticmaalna maca versionka ugu dambeeyay ee shirkada kasoo baxaa waa Camtasia Studio 8. marka koowaad waxaad tegaysaa website-kan oon ku dhigay videoga hoostiisa. maandhaweed waxaa laysoo weydiinayay videoga hoostiisa maxaad uga jeedaa. tusaale ahaan videogan aad daawataan imika aynu hore usoo xalqadan aynu hore u qaadanay oo kale, hoosteeda markaad tagto halkan show more markaad tiraa, halkan waxaad ka helaysaa si aad u hesho barnaamijkan ku dhufo halkan. marka qaabkaas oo kale ayaad uga download garanaysa videoga hoostiisa. marka website-kan oon ku dhigay videoga hoostiisa ayaad ku dhufanaysaa linkiisa, page-kan ku keeni doonaa. marka shirkadda waxay kugu qasbaysaa inaad account ku samaysto, free trial baad ku dhufanaysaa halkaa ku qoran tahay, si trial aad u isticmaasho 30 cisho kaa dhacaya ka bacdiya. 30 cisho kaliya isticmaali karaysaa, 30 cisho ka bacdi uu kaa dhacaya micnaheedu weeyaan, oo shirkadda waxay ku weydiinaysaa inaad iibsato barnaamijka. marka qaybtan Windows download ayaan ku dhufanaa, simple waxay noo soo saari doonaa barnaamijkaagii aad wax ku download garan jirtay, aad isticmaali jirtay. marka anigu waxaan isticmaalaa IDM-ka, marka IDM-kii buu soo saaraya, waa download garanaysaa. anigu marka wuu download garaysan waa igu jiraa. qaabkaad haddaba u install garanayso waa sidii caadiga ahayd, next ilaa finish aad gaarayso. qaabkaas ayaad ugu install garanaysaa barnaamijka. marka haddaba barnaamijka markaad ku install garayso ku shubto computerka, laba qaybood baa ayuu barnaamijka u qaybsamaa. qayb markaad tusaale ahaan halkan tagtay startidaad qorto Camtasia, aad qorto Camtasia sidan oo kale, waxaa soo baxaysa Camtasia Recorder 8 iyo Camtasia Studio 8, labadaas ku soo bixi doona. Camtasia Recorder 8 waa markaad rabto shaashada inaad duubto, shaashadan aad daawanayso in aad duubto waa marka aad doonayso. marka qaybtan Camtasia Recorder 8 waa qaybta duubaysa. markaad ku dhufateed soo furto, halkan waa tan ka muuqato, waa intaa yaroo kaliya ka muuqanaysa muraayadaada. halkan halkaa waxaa kuu soo dhigmi doonta calaamad cas oo start markaad ku dhufato waa la duubayaa, sida minadadii socotay imika u socdaa videogu. marka videogaasaa la duubayaa. marka qaybtan waa simple oo wax iska fudud, dhib male, waa start. hadhow markaad rabto inaad save garaysana stoptan ayaan ku dhufanaya, stop. kadib videogii bay tusaya, dib yara daawatiinaya muddo yar oo leeyahay iska tijaabi videoga, kadibna save baan lahayd. markaan save garay, save and edit ku dhufto ayuu ii soo saarayaa barnaamijkii caadiga ah. marka qaybtan waa simple, aad bay u fudud, waad samayn karaysaa iyada, dhib male. laakiin sirtu waxa weeye waa qaybtan kale ee Camtasia. markaan qorno Camtasia Studio 8 la yiraahdo, qaybtan kale markaad ku dhufato waxa kuu soo bixi doona barnaamijkii. marka barnaamijku waa kan, barnaamijkana waa kaynu sharxi doono, tutorials u kala qaybin doono. aad buu ballaadhan barnaamijku. marka anigu mar rabo inaan ku dul cararo sida qolooyin kale ay u dul yaaceen oo kale. marka waxaan rabaa si dhammaystiran inaan kugu sharxo barnaamijka. bismillah. marka barnaamijka qaybtan wuxuu leeyahay record the screen, waa qaybtii hore un bay la mid tahay, marka wax faa'iido ma laha. halkan import media waa barteed kaga soo darayso videoyada diyaarsan ee aad haysato. tusaale import media markaan ku dhufto aan tago desktop oo kale, tusaale aan tago aan soo qaato video diyaarsan, tusaale kan baan yiraahdaa Messenger 2, waa kaynu hore u diyaarinay ayaan soo qaadnay. halkan haddaba uu soo galay Messenger 2 uu soo galay, waxaa la yiraahdaa clipping baa la yiraahdaa clipping. marka halkan qaybay u kala qaybsantay, adoo qayb halkan jooga hays oran ha khalkhalin. marka clipping baad ku noqonaysaa, video kastood ku soo dartaa halkan ayuu soo galayaa. way markuu videogu sidan ugu jiro, videogii marka waxa kama bedeli karno, mana hagaajin karno.
kaliya clippingkii baan kusoo diyaarinay. clippingku waa ii soo dhaweey weeyaan micnaheedu ayuunbay u dhigantay micnaheedu saa ma aha. clipping marka halkan ayuu kugu soo dhaweynayaa. marka clipping waa qaybtan. halkan qayb kaloo library la yiraahdo jirta. library-ga waxa ku jira horta clipping ay sharaxna si dhameystiran. halkan waxa la yiraahdaa barnaamijka timeline baa la yiraahdaa timeline. videoga aad rabto inaad hagaajiso bartanaad ku hagaajinaysaa halkan aad ku soo daraysaa videoga. qaybtan kale waxa la yiraahdaa video preview baa la yiraahdaa qaybtan video preview. qaybtan video preview waxaad ka eegaysaa videoga aad imika hagaajinayso waxaad ka bedeshay aad halkan kala soconaysaa. marka qaybtana lead ka sare qaybta produce and share waa qaabka aad u save garaynayso weeyaan. marka isagana tutorial 2 way kaga ku soo qaadan doonaa. tutorial 1 aynu imika ku dul marayna barnaamijka. tutorial 2 na waxaan idinku siin doonaa hal video tusaale oo sameeyno dhameystiran aynu sameeynaa waynu ku hagaajinaa. marka videogan markaan rabo si aan u hagaajiyo inaan timeline-ka ku soo daro laba siyood baan ugu soo dari karaa. ka koowaad waa inaan ku dhufto soo jiido halkan ku sii dhexdaayo oo san soo galo. kadib markuu bartan san soo galo oo san kugu yimaado dabcan videoga halkan aad ka xukumi karaysaa. kan yare soo baxay waxa la yiraahdaa split baa la yiraahdaa split. marka right click siiso split halkan uu kaga soo baxay magaciisu. split kan ama kaar zawirna adigu magaciisa muhiim maaha. marka kan yar waa ka ku xukumay videoga kolba halka uu marayo. oo tusaale markaan videogii start iraahdo bilaabo san uu soconay videogii marka kan waa ka videogii halku marayo kula socodsiinayo weeyaan. marka halkan timeline-kii baan videogii ku soo darnay. timeline markaan ku soo darno micnaheedu waxbaan ka bedeli karnaa. video preview-gana kolba waxaan bedelin ka daawanaa. qaybtan kale library barnaamijka waxa loogu talagalay shirkadu in ay ku diyaarisay diim hordhac iyo codad ah oo tusaale ahaan hordhac sad aragteen muxtarif markaad imika soo galisay videogan hordhac yar buu lahaa. hordhacyo noocaas oo kale ay shirkadu ku diyaarisay. marka dad designertay waad samaysan kartaa adoo hordhacyo kugu gaar ah ugu samaysatay sida ka muxtarif oo kale. marka waxa jira hordhacyo kale oo isticmaali karto oo halkan iska yaala ee jiro shirkadu ugu talagashay. tusaale ahaan hordhacan oo kale tusaale ahaan yiraahdo hordhacaas oo kale aad ku soo darsan karaysaa. right click baad siinaysaa kadib add timeline baad oranaysaa. haylaawin inaad ka qayb qaadato kanaalkeena si aad u hesho waxa cusub. sidoo kale inaad akhrisato boostooyinka cusub adoo ku biiraya bloggeena muxtarif iyo inaad Facebook page-keena ku soo biirto.